waxaa maanta magaalada Ceelaf Weyn ee galbeedka gobolka Sanaag hub iyo gaadiid tiknika ku wareejiyay mid ka mid ah ardayda walaalaha ee diruurta hore ugu dhaxmartay deegaanka Ceelaf Weyn. munaasabada wareejinta gaadiidka ayaa waxa goob joog ah saraakiisha ciidamada qaranka, mas'uuliyiinta maamulka degmada Ceelaf Weyn, waayeel iyo guurtida beesha hubka wareejinaysay. waxaan ugu horeynba ka hadlay qaar ka mid ah waayeelka beesha maanta gaadiidka tiknikada ku wareejinayay xukuumadda Soomaaliland oo sheegay inay ka go'an tahay nabadgelyada iyo waliba hubku dhigista, iyagoona walaalahooda dhinaca kale ee beesha colaadu ay dhexmartay ugu baaqay nabadgelyo. tan halkan la keenay ee aanu keenay hadaanu nahay bahay ama reerka bahal la yiraahdo baabuurta aanu keenay waa tikniko annaga lahayn kontrabisha baan ku iibsanay. waxaanu iibsanay inaanu iskaga ilaalino cadawga Puntland ka imanaya. Soomaaliland way iibsan, shicibkana way iibsan. waxaanu iibsanay inaanu iskaga ilaalino cadawga naga imanaya dibadda. waa la wada garanayaa kaasaanu u biirsanay, lacag aanu isku darsanay weeye. nin ma lahayn meel xubay nagaga tiilay. waxa weeyaan Soomaaliland hadday maanta nagaga dhigtay saddexdaa gaadhi ee aanu haysanay tiknikana ma haysano, saddexdii waa taa. markii waxa kan tiknikadii iyana go'aan qadaar baan qaadanay inaanu keeno tiknikada. waana laga hayaa. waxaan dalaalka ka cadaynayaa barigii hore dawladii afweyne beeluhu ninba waxbuu ka hela. wixii aanu anagu ka helay waanu dhiibay. waa kuwa maanta ciidanka Soomaaliland ay wataan. beelaha kale ee walaalaha iyo qayb baa haysata. kaa hore aanu anagu wareejinay. kaa hore aanu anagu qaranka u wareejinay la siito waa la haystaa. waxaanu ku cadaynaynaa inay weli beesha walaalana ay gacanta ku hayaan kii kuna mushaar qaata. waxaanu ku wareejinaynaa gaadiidkii loo tirinayay oo ay haystaan oo ay ku dagaalamayaan. waanu soo wareejinay oo kuwa kaadaynina ku aragtaan. xoogna la kama keenin. amarka dawladaan ku keenay. amarka dawladda ayaan ku wareejinay. sidaasaan uga amar qaadanaynaa. waxaanu sheegayaa walaayagaan dirirteedna dhex martay inaanu nabad ugu baaqayno. diyaarna aanu nahay nabadgelyo. cid kasta oo diyaar waa nabadgelyo diyaar nahay. weli baanu ku baaqayno annagu waanu diyaar nahay. waxaa walaalkaa muhiimkiisu waxa weeyaan anagu hubkii xaggeeda loo tirinayay ayaanu haysanay. wadda Soomaaliland baa lahayd. Soomaaliland baa kusoo wareejinay. waxaanu u codsanaynaa wixii go'aamada dawladda ay soo jeedisaa inay fulaan ayaanu codsanaynaa. tiknikadan ama gaadiidka meesha la keenay iyo wixii saaran Soomaaliland awalna way ahaayeen, gacantaydan bay ku jireen. imikana gacanta Soomaaliland un baan ku soo wareejinay, meel ma tegin. aad iyo aad waxaan ugu qanacsannahay oo si raalinimo leh ku keennay. mar haddii nalaga codsaday oo la yidhi soo xeraya oo haatan wax kastaba loo raacay dawladdu naga codsatay, annagoo dawladdayada ayeedsan, annagoo arrinkaa mar hore aan madaxweynaha la kulannayna arrimaha aanu ka wada hadalnay oo aan xusuusinayo madaxweynaha inaan hadalladii hore ku jireen. annagu Soomaaliland wixii ay tidhaahdo iyo wixii ay ku taliso iyo wixii ay nagu dhaqdo baanu raalli ku nahay. maanta waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa beesha Boho Faarax Biciide go'aanka geesinimada leh ee ay ka qaadatay inay soo dhiibtay hubkeedii tiknikada ahaa ay halkan u dhiibtay iyadoo u dhaqaaqay xaggii nabadda. aad iyo aad baan beesha ugu mahadnaqayaa arrintaa geesinimada leh si ay u soo afjaraan dagaalka mashruuca laga dhigtay ee muddada badan qaranka Soomaaliland ku ahaa dhiigbaxa. ta kale waxaan leeyahay baaq nabadeed u dirayaa walaaladay beesha Sacad Yoonis inay hubka la mid ay haystaan ay soo dhiibaan oo xagga nabadda u dhaqaaqaan oo joojiyaan dagaalka. waxaan kaloo aad iyo aad aan kula dardaarmayaa oo halkan fariin uga dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi inuu oofiyo ragga hubkoodii dhiibay u damaanad qaado ammaankooda. hubka in badan baa beelu haysteen lagama wareejin.
waxaan leenahay madaxweyne ballantaa aad qaaday waa lagaa sugayaa inaad ammaanka beesha la midana hubka dhigis ku samayso. waxaa iyaguna aan ka uga mahadcelinayaa dadweynaha maanta halka ku sugan, gaar ahaan waxaan si gaar uga mahadcelinayaa odayaasha cuqaasha iyo waxgaradka beesha boqol ee qaatay maanta iyagu inay hubkii ay haysteen ee ay iyagu gacanta ku hayeen maanta inay ku wareejiyaan ciidanka qaranka si ay uga mid noqdaan hantida ay dawladdu leedahay. go'aankaas oo runtii ah go'aan geesnimo leh, wakti adag iyo talo adag runtii ku yimi, qancin badan ku yimi, heerku ay dhammaan ka wada shaqeeyeen, hadday tahay odaygoodii, cuqaashoodii, siyaasiyiintoodii, xildhibaanadoodii iyo gobol-joogooduba. kulanka lagu wareejinayay gaadiidka tiknikada ayaa waxaa ka hadlay maayirka degmada Ceelafweyn iyo barasaabkii hore ee gobolka Saraar oo dhammaantoodba bogaadiyay beesha maanta hubka wareejisay. aad iyo aad baan waa loo mahadceliyey beesha hawsha soo gashay, dadaalkana soo samaysay. waxaanu leenahay sida ay u ballan qaadeen ilaahay inoo aqbalo, nabadgelyada ay u ballan qaadeen hubkan ay soo wareejiyeen. waxaynu rajaynaynaa dhammaanba gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada Ceelafweyn beelaha jooganayana wadada hubbeega waaweyn ay qaranka ku wareejiyaan. qodob waxa weeye beesha Boqo Faarax oo aynu maanta u mahadcelinayno. ilaahay baa jasaageeda ka siinaya, qarankuna waa idiin ogaanaya, dawladdiinnuna waa og tahay. odayaashii hawshan wax kaga jiray ayaan ka mid ahaa wax ka galay. ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha saldhigga saddexaad ee ciidanka qaranka Somaliland gaashaanle sare Faysal Cabdi Bootaan ayaa isaguna dhankiisa ku dheeraaday ahmiyadda nabadgelyadu u leedahay wada noolaanshiyaha bulsho walaalaha oo alla meel ku wada abuuray. waa muhiima xaflad ballaaran weeye, beesha boqorad ee soo wareejisay hubka iyo qoryaha ay iyagu gacanta ku hayeen oo iyagu ay gacantooda aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. khayr allah idin siiyo. cid kastaana waxaa muhiima inay wanaagga ka shaqayso. xukuumadda talada haysaana hubkaa ay ku soo wareejisay beesha boqorad ee ay ka shaqeeyeen odayaashii, ganacsatadii, aqoon-yahankii, madax dhaqameedkii iyo salaadiintii, cid waliba ay arrintaa ka shaqaysay ee ilaa heer wasiirada ah ay ka shaqeeyeen dowladda guud. aad iyo aad beeshaasu siday hawsha uga hawl gashay ay beeshaa bahoodma wareejin guud ahaan beelweynta ay ka soo jeedaanna ay ula qabto xukuumadda iyo taliska ciidanka ee maanta halkan anigu aan taliyihii ciidanka qaranka saraakiilkaas Nuux Ismaaciil Taani aan wakiil ka ahay. anaguna hubkaa waa idinkala wareegnay, si qalbi furan baan idinkala wareegnay. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. waxaa samaysteen dadaal wanaagsan oo ku dayasho leh. Cabdiraxmaan Maxamed Xidig, telefishinka Ariel, Ceergaabo.